Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada Faiza Beauty. Haddii aad janaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelka taawo si aad ula socdid wax walba aan soo dhigay. Walaalihii qaaliga ah oo hore ila joogay waa ku mahadsantiin sidaad ila socotiin mar walba. Waan arkaa kommentiyadiina quruxda badan aad u mahadsantiin. Maanta waxaan rabaa inaan ila wadaago cabitaan aad u macaan fitamiinna leh waad ku afuri kartaa insha Allah. Waxaa ka sameysanaynaa kiwi iyo caano la daawada sida u sameysanaynaa cabitaankani. maanta intaan ka sameysanaynaa 2 xabo oo kiwi ah, sokor 2 qaado ka isticmaalaynaa, 1 koob caano ah, baraf aad soo jajabsanay iyo ice cream qaybta oo vanilada ka isticmaalaynaa. hadda waa soo jarjaraynaa isku soo laabanaynaa. maasha Allah waa soo jarjaranay makiinadayna ayaa ku shubanaynaa. waxaa korkooda soo darsanaynaa barafkii. waxaa kaloo hadda korkooda shubanaynaa 2 qaado sokorta ahayd. waxaa kaloo korkooda shubanaynaa ice cream 2 qaado asina. hadda caanaheena ayaa korka ugu shubanaynaa, waa shiidanaynaa kadib. hadda cabitaankeena waa shiidanoonaa walaalahayga qaaliga ah. kiwiga faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah vitamin C waaye, maqaarkana wuu u fiican yahay, macdanna wuu leeyahay iyo fitamiino kale oo badan. ka faa'iideysta walaalahayga qaaliga ah. maasha Allah cabitaankeena markaa soo shiidanay saas uu noogu soo baxay walaalahayga qaaliga ah. oo ku mahadsantiin daawashada videogan. haddii aad videogan ka heshay like saar, share dheh asxaabtaada la wadaag. wixii ra'yigaagana commentiga noogu reeb. waa inuu videogan iyo video xigo insha Allah. Gifted and Safi.